توازن الغذاء خير من الدواء، وكل من يفعله يعيش في هناء. توازن الغذاء خير من الدواء، وكل من يفعله يعيش في هناء. وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء وصالح اللحوم من بحر ومن سماء. وللحليب دوره في قوة الأعضاء والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء. والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. قالوه يعيش في هناء. وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء وصالح اللحوم من بحر ومن سماء. وللحليب دوره في قوة الأعضاء والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء. والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. macali madhabay sanoo habiyo halkay dhigayso kunjeer hubiso habeen iyo maalin hawsha hayso muucaad bay ku hortay heegadiye. maanta jimca bishu ay tahay 10ka bisha koobaad 2020 waxaynu u fadhinaa xafladda qalinjibinta ardayda ka qalinjibisay cuntada karinta. sida boorka inaga muuqatana waa dafcadii 25aad. dacwadda waxa uu ka qayb qaataa qaybaha xifdiga quraanka sidaad ka warqabtaan ay qaybo badan bay inooga maaragtay socdaan, iyo sidoo kale qaybta daraasaadka islaamiga ee shareecada lagu barto, iyo qaybta xifdiga mutuunta ee ardayda xufaadda ee quraanka dhameysay ay dhigtaan. sidoo kalena wuxuu markasku inooga howlgalaa qaybaha tababarada ay ka mid yihiin tababarka macallimiinta iyo ducaadda. tababarkan imika maanta aynu fadhino ardaydii qalinjabintoodii ee cunto karinta. waxa la yiraahdo duxda ama saliidaha, iyaduna waa qayb cuntada kamid ah, iyo tamarta qaybta tamarta ama carbohydrate baynu inta badan nidhahnaa. marka gabadha wax baratay waxa laga dheehan karaa inagu imka dhalinyaro loo badan yahay, waxaan nahay hooyooyinkii mustaqbalkeenahay. marka gabadha waxa wax baratay waxa laga dheehan karaa ilmaheeda. guri marka tay joogto eed hooyo tahay haddaad cunto fiican soo bandhigto oo cunto kariso waxa laga yaabaa dumarka Soomaalidu waxa ka cawdaan waana la gursaday la gursiga ka waxa ka cunto xumo ka waxa kaaga noqonaysa haddaad cuntada karinaysay ilmaha yar cuntada siinaysay iyo ninkaaga cuntada siinaysa dad kala garan weydo waxyaabo badan bay ka dhiman bay aniga la tahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. maanta jimca bishu ay tahay 10ka bisha koobaad 2020 waxaynu u fadhinaa xafladda qalinjibinta ardayda ka qalinjibisay cuntada karinta. sida boorka inaga muuqatana waa dafcadii 25aad. waxaan ku furfuranaynaa xafladeena quraanka kariimka inoo akhrin doonto سلاخة محمود. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات سجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا
ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. جزاك الله خيرا walaashin aad buu mahadsantahay Sulaakha sideen hore u sheegnay waxaan fadhinaa qalin jibinta ardayda cunto karinta ee markaska Macaad dafcadiisii 25aad imikana waxaan u yeeri doonaa firqada anaashideena akhrin doonta warda hal beegsanayo horaanu marnee hal beegsanayo horaanu marnee hurdada wankasa idnay waa hore hubal wanka hel nay kaalmaa hore hamoogane hore u soo gaadhe maamule u qalma mas-uulka hayo habaqan iyo marle haadsan iska tag hagaajiso haw lohooydilo muucaad bay ku hortay heegadiye muucaad bay ku hortay heegadiye macalimad habay sanoo habiyo halkay dhigayso kunjeer hubiso habeen iyo lin hawsha hayso muucaad bay ku hortay heegadiye muucaad bay ku hortay heegadiye duuciyo haldarda ranaa hadhayo duuciyo haldarda ranaa hadhayo ardayda baxaysana halbaan leenahay hablaha iyadu markou hambalyo hadafkii nibad hesheen maantee hore u socdo ha noqonina halbowluhu waa farsamadee dhalinyaroy dadaala u tartama wax soo saar xaqiiqda ayaaba ah hablihii uu daashaday bariis dalaciyo baasto isku dhex karisi maantaba waa kuwa keenay kalluun iyo fadiirad farsamadiisu caad fariido way idinka muuqataa halkaa kasii wada ha noqonida macalimad caqli loo caadil dhameeyo cunto iyo codkar hadday tahay loo wada mabsuudo bal caynkay tahay la eego sucaad maydan cajabisay waa dhammayso waa gaari dhiiran waa dharaar noo soo baxdo mudig iyo jahliga naga saartee bal caynkay tahay la eego sucaad maydan cajabisay caqli eebasiiyo garaad bay dumar dheerto gaari weeyo dhowrsano dumar way wax dheertee ani way cajabisay caadilo allow cisigeeda dhowr sharaf iyo hadbeed ku aarsi aqalo aad buu mahadsan ardaydaasi ducada ay noo duceeyeen ilaah waa aqbalo macluumadooda sucaad imika waxaan kusoo dhaweynaynaa هذا حسين أو كهل دونتا أرضي كقل جبنس دورة عن تكرنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله مرك هور إلهي بمحض له سبحانه وتعالى اسكو كان كيني مكان كان شرفت بدن ينو قلادي حلفدن قيمها بدن محضنا قيلهي كديب halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan mashtarafta isku kutimi iyo ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta haddaan ka warramo waxbarashadayada halkan noo socotay waxa weeye imika muddo ayay noo soo socotay 3 bilood ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maantana ilaahay baa noo dhammaystiray waxaan ku dhiganaynay cunno karin waxa weeye dadka qaar ayaa cunno karinta markaan nidhaahno kale aan nidhaahno cunno karin baan tagaynaa waxbarasho ma moodaanba imika xal la sii socotaa bay koodnayaan laakiin waxa weeye qalin iyo buug in la qaado maaha waxbarashadu aqoonta aad farsamada aad gacantaada ku barataa waa ta ugu qiimaha badan leh dumar haddaynu nahayna haddaynu waxaan ku jirnay hawsheena u badan tahay ka shaqaynaa waa dheryun gabadha hadday dheerigeeda iska hagaajiso sharaf iyadaaday u tahay marka waxaan idin leeyahay goobahan oo kale ee cunno karinta iyo farsamada gacanta oo fara badan oo walba u qaybsanta dumaro waxaan idinku dhiirinayaa hamoogaanina mar kasta waa inaad la socotaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي كنا حنقصد دويننا إكران عرب أو ينورون دونتا كلمة كوسابسن أهمية علمها يحبر الشذا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد والكروان السلام يا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ardayda iyo marti sharaftaba aad baan u salaamayaa ardayda iyo marti sharaftaba aad baan u salaamayaa waxaan halkan kelmad ka jeedinayaa aqoonta iyo muhiimadda ay noo leedahay aqoontu waa furaha nolosheena waana shay muhiima qofka aqoonta bartay uu ka fikir fiican yahay oo uu ka maskax fiican yahay uu ka fikir wanaagsan yahay qofka aan aqoonta lahayn marka aqoontu gaar ahaan hadday nahay dumar aqoontu waa shay muhiima cilmigeenu wuxuu xilligii la cadigii islaamka wuxuu soo lahaa yani bidaayadiisii qayb buu ka mid ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu dadaalay inuu ummahaatu muuminiinkii iyo asxaabtii kaleba inuu cilmiga aada u baro waxaan u sameyn jiray jalasaadkiiga u gaara si uu cilmiga ugu baro markaa waxay lahaayeen dumarka saxaabiyaadku waxna way baran jireen waxna waa la bari jiray waana fatwoon jireen waxaanay lahaayeen muxadithaad sida caaisho oo kale xadiisyada kasoo waritay iyo ummahaatu muuminiin kamid ah iyo xafsa binti cumar fiqihaadna way lahaayeen marka cilmigu waa shay aada muhiima xilligan iminkaan joogno cilmigu aada buu inoogu fududaaday si fudud baan cilmiga u baran karnaa beriga hore dadkeenii hore way u safri jireen si ay cilmiga usoo bartaan laakiin alxamdulilah iminka adoo gurigiini jooga gelinkii horena cilmi soo baranaysaa gelinkii dambena mid kale soo baranaysa cilmigii oo ballaaran aqoontu waa shay ballaaran aan la soo koobi karin marka gabadha muslimadda waxaa u muhiima inay barato cilmiga diiniga cilmigeena diinigu aada buu inoogu fiican yahay inagoo aan ka tegin cilmigii kale maadiga waayo adduunyo iyo aakhiraba inaad wax ka shaqaystaa adigay kuu fiican tahay sidaan ogsoonahay inagu waxay nahay waxaa la dhaha gabadhu waa warshada wax soo saarka waxaa ugu fiican warshada wax soo saarkeedu uu fiican yahay marka gabadha wax baratay waxaa laga dheehan karaa inagu imka dhalinyara loo badan yahay waxaan nahay hooyooyinkii mustaqbalkay nahay marka gabadha waxaa wax baratay waxaa laga dheehan karaa ilmaheeda jirkiisii dhaqankiisii iyo aqoontiisiiba ilmaheeda laga dheehan karaa waayo ilmuhu marka ugu horeysa intaanu bulshada ku tegin waxa uu joogaa hooyadii buu ag joogaa marka hooyadii dhaqankeedii unbuu yeelanayaa marka inaynu aqoonta aada ugu dadaalno ayaa muhiima waxaan kusoo gabagabaynayaa bilisay waxbaro aada baraadhide asalaamu calaykum waraxmatullah way mahadsantahay ikraan carab kelmadda qiimaha badan ee ku saabsan qiimaha cilmiga uu leeyahay iminkana waxaan kusoo dhaweynaynaa sucaad cabdilaahi oo inagala hadlaysaa faa'iidooyinka cuntada bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin marti sharafta macalimiinta ardayda dhammaan dadka quruxda badan ee hor fadhiya aad baan u salaamayaa aadna waan ugu mahadnaqayaa mahadda koowaad kolle ilaahay baa iska leh subxaanahu watacaala oo isku keenay fadhigan quruxda badan mahadda labaadna dee cidda soo ajiibtay ee waqtigeeda usoo hurtay iyo ardaydaa waxbaranaysay baan runtii gaadhsiinayaa ardayda si gaaraan mar labaad usoo dhaweynayaa waayo iyagu waqti badan bay bixiyeen dadaal badan bay bixiyeen hawshani de waa hawshoodii waana xafladii iyaga lagu maamuusay markaa waxaan leeyahay mar labaad idinku soo dhawaada waana mahadsantihiin kolley horaa loo sheegay xafladda iyo waxay ku saabsan tahay taa waxba ku noqon mayno oo ardayda quruxda badan inuu aragno ee ka qalin jabisay habka cuntada loo sameeyo kolley siday walaashii hore ka dhawaajisay cuntadu de waa wax guri walba lagu sameeyo laga yaabay dad badanina inay qariibsadaan marka la yidhaha cunto karin baan soo baranaya laakiinse dee muhiimado gaara bay leeday qof walba waxbaa u baxsan waxna waxaa laga yaabaa inay ka qarsooyin ku saabsani horta dee insaankan ilaahay abuuray guud ahaanba waxyaabo fara badan baa ku xeeran waxyaabaha faraha badan leh ku xeeranna waa waxyaabo ilaahayda inoogu talagalay inaynu nolosheenna intaynu joogno adduunka aynu ku wadanno cuntadu waa qayb ka mid ah waxyaabaha nolosha aynu ku wadanayno waxaa laga yaabaa in dadka qaar qalad fahmaan oo si qaldan u isticmaalaan
dadka qaarna ay dee ka dhacaan oonay miisaankeedii aanay siinin markaa kolley anigu dadka aada cuntada ugu takhasusayna ma ihi laakiin hooyooyinka barnaamijkaa jecel ee indhaha ku haya baan ahay waxna ka yar akhriya maxaan ku raday oo aan ka marnayn laakiin qof takhasus weyn ku haysta oo maxay ahayd dee loo daba fadhiisanaya ma ihi runtii faa'iidadii dee aqoontuna qofba in bay kaga jirtaa kulligeen way nagu wada jirtaa marka qofba dhankii wax ka arkayo uun in dee la isu gudbiyo oo maxaan ku rahdaayay kulleyba laga wada hadlo markaa mawduuca taagana waa muhiim haddaynu usoo noqono mawduuceennan kolley cuntada iyo faa'iidooyinkeeda maxaan ku rahdaayay ayuunbuu ku saabsanaanaya oo weliba kooban runtii horta inagu Soomaali ahaan dad markii hore dhaqan wanaagsan xagga cuntada lahaa baynu nahay oo maxaan ku rahdaayay cunto fiican baynu cuni jiray oo dabiiciya oo maxaan ku rahdaayay inagu uu nimcadii Ilaahay ina siiyay iyo waxaynu gacmaheena ku beeranay ka kooban oo xoolihii midlan caanihii iyo cadkii iyo wixii dhulka inooga soo baxayay ayaynu cuntadeenu ku koobnay laakiin adduunka dee uu isbedelay wax badan baa soo kordhay casriba maxay de mar walba la sii gelayaa waxbaa la warshadeeyay wax fara badan ayaa soo kordhay waxa soo kordhay baa mushtari baa soo kordhay oo arinta ugu khatarta badan qofkan baa mushtarigii dad badan baa waxay ka fakaraan iyagu waxay ka faa'iidayaan dabadna cuntooyinka dhib fara badan baa imka ku xeeran baa mushtarigu waxyaabuhu sameeyo waxa kamid ah inuu isagu eego uun dhadhanka ee aanu tayada eegin waayo mar walba wuxuu ku fakarayaa waxa ugu jaban ee loogu jeclaan karo ee isaguna uu ka faa'iidayo waxyaabaha qaar baa imka waxa dhacda in la sameeyaba in lagu daro shayo la qabsi ku keena jirka oo qofkani aanu ka maarmin sidii daroogadii jaadkii iyo sigaarkii wixii la mid ahaa loo doonayay oo kale in loo doono ay ku tala galaan warshadaha qaar marka horta dhibaatooyinka faraha badan laba imka soo kordhay dhibna ka dhigay inay cuntadii dee khatar ay yeelato laakiin markii hore ee waxa dabiiciga ay ku koobneed khatar ma lahayn guud ahaan cuntadu haddaynu eegno waxa weeyaan waxyaabaha Ilaahay inoogu nimceeyay ee ka qayb qaata caafimaadkeena iyo koritaankeena ama maskax noqoto ama jir ha noqoto cuntadu iyada xukunta ama qayb lixaad la ka qaadata qofkani sidoo uu korayo say maskaxdiisu u korayso iyo caafimaad qabkiisa Ilaahay baa bixiya laakiin Ilaahay baa dee cuntadana ina siiyay inagu ilhaamiyay marka meeluhu inoo soo mariyay caafimaadkay ka mid tahay cunto caafimaad qabta ama cunto isu dheeli tiran ayuu qof wal oo bini aadmi u baahan yahay haduu waayo dhibaatooyin baa ka soo gaaray haduu helana wuu ka faa'iidayaa qof maskaxiyan oo caafimaad qaba oo jir ahaan oo caafimaad qaba oo koriin fiican hela ayuu noqonayaa marka la yiraahdo cunto caafimaad qabta ama cunto isu dheeli tiran waa maxay macnaheedu waxa weeyaan ashyaa cuntada ku jira jirka ibni aadamkuna u baahan yahay in cuntadaadii aad ka hesho markaad cunto dabeetana cuntadaas waxay noqonaysaa cunto isu dheeli tiran tusaale ahaan 8 qaybood ayaa loo qaybiyaa cuntada marka inagu kulli af Soomaali cid ku turjuntay oo ku soo bandhigtay maan arag haday jirtana kulli way yar tahay laakiin inta badan maadooyinka waxa lagu sheegaa un luqadaha qalaad qaarna dee af Soomaaliga baynu ku darsanayo waynu iska wada fahanaa waynu wada garanaynaa qaybaha hadaynu daadegno wax weeyaan waxa la yiraahdaa borotiinka cuntada uu ku jiraa waana cuntadaada inuu ku jiro waxa la yiraahdo minerals ama macdanta iyo fitamiinada iyaguna waa laba qaybood ka borotiinkii mineralkii ama macdantii fitamiinkii inagu magaca fitamiin baan isticmaalaa magac kale uma naqaano saddex soo maaha biyihii waa qayb cuntada kamid ah oo ku jirta wax la yiraahdo fiber oo iyadana aynaan af Soomaali ku garanahayn oo cufka ama qaybta cufka ee cuntada oo kale aynu ku yar macnayn karo laakiin fiber un sida borotiinka iyo fitamiinka hun inagu soo gaadhay waxa la yiraahdo duxda ama saliidaha iyaduna waa qayb cuntada kamid ah iyo tamarta qaybta tamarta ama carbohydrate baynu inta badan nidhahnaa 8 kulay nooc ayay cuntadu ka koobantay 8 mid waliba waxay leedahay faa'iidooyin
ayay leedahay uu qofka bini'aadmiga ka helayo oo caafimaadkiisa iyo koriinkiisaba faa'iido u leh haddii la waayana khasaare iyo dhibaato qofka soo gaaraya ayaa iyaduna jirta iminka tusaale ahaan haddaynu eegno borotiinka oo kale wax weeyaan waa jidhiska qaybta jidhiska u qaabilsan yahay inuu murqaagu dhisnaado inuu xoog bato inuu koro inuu caafimaad qabo inuu sidii la rabay u shaqeeyo jirka bini'aadmiguna waxyaabaha ugu badan ku shaqeeya waa muruqa haddii la waayo dhib baa ka imanaysa qaybtan la yidhaahdo macdanta ama faytamiinadu caafimaad qabka qofka in qofku caafimaad qabo awoodiisii jirkiisa difaaciisa sareeyo uu xanuunadii ka ilaaliyo ayay iyaduna u qaabilsantahay qaybta biyuhu inuu jirki helo oonbaxaasoo hadduu waayo dhibaatooyin ay kasoo gaadhayaan isagana ayay uga baahan tahay faibarta ama qaybta cufka ah iyaduna inuu jirkii khashinkii ka baxo mas-uuliyadda u weynay u haysaa inuu khashinka jirkii ka baxo ayay u qaabilsantahay hadduu khashinku ka bixi waayo jirka iyadana dhibaataa ku imanaysa hadday noqoto qaybta kale la yidhaahdo duxda iyo saliidaha iyaduna waxay inoo qaabilsantahay inuu jirkaagii weliba khaasatan qaybta dubka ama iskiinka loo yaqaanaa inay caafimaad qabto tamartana way ka qayb qaadataa carbohydrate-ka qaybtaynu nidhi ama tamartu iyaduna waxaweyaan awoodii qofkii qof firfircoon oo awood lahoo soo jeedo nashaada inuu noqdo ayay iyaduna ka qayb qaadataa marka qofka cuntadiisii waa inay noqoto cunto loo eegay 8 qaybood oo 8diiba laga helayo maanta haddaad wax borotiinku ku badan yahay cunto berrina waa inaad wax macdantii iyo faytamiinadii ku badan yihiin aad ku darto qofkii isla wada helaya dhaqaalihiisu u saamaxaya maalin walba inuu 8 qaybood wax kaga daro kii kalena inuu isku daalacnaasilu isku qaybiyo cashada hadduu qayb ka dhigi karo qadadana qayb ka dhigi karo quraacdana qayb ka dhigi karo ama wiigii shayba 2 jeer soo celin karo ama shayba mar kolba awoodaadu sayta marka inaad maanka ku hayso waayo waad u baahantahay haddaad weydana waad u dhibaatoonaysaa marka cunto isu dheelitiran waa cunto intaa ka kooban waana cunto qof waliba u baahan yahay kii waayaana uu dhib iyo caafimaad darro la kulmayo dee biidnillaah wax walbana ilaahay unbaa mas-uuliyadeeda iskale borotiinka haddaynu eegno oo kii u horreeyaynu sheegnay oo aynu nidhi jir dhiska iyo muruqyadu inay caafimaad qabaan inay shaqeeyaan buu mas-uul ka yahay haddii la waayo maxaa dhacaya qofkii daal baa ku dhacaya oo qof awood badan oo wax badan qaban kara ama in badan shaqeyn kara ama waqti dheer shaqeyn kara ma noqonayo muruqyadu way xanuunayaan jirkiisa jir dabacsan oo jilicsan oo aan awood badan lahayn buu noqonayaa faytamiinadii ama macdanihii haddii la waayo aynu nidhi qaybta caafimaad qabkay mas-uuliyadooda u badan tahay maxaa iyagana dhacaya qofkii dhiig yaraan baa ku imanaysa horta oo dhiiggiisii wuu yaraanayaa daciifnimo qofka haddii awoodiisii dhiigu yaraato qof daciifahoo wuxuu noqonayaa awood yar buu noqonayaa qof barara oo matalan jirku inuu iska bararo ayaa la arkaa wuxuu noqonayaa qof wareer iyo dawaqad iyo jeer dawaqsan oo dhulka ila wareegaya ama ku odhanaya ama hadduu doono mararka qaar sidii wax yar miyir beelay oo kaleba noqonaya ayuu noqonayaa waxaa iyana ku dhacaya qof khayaal inuu yar hormaro oo qofkaasi waswaas baa ku dhacay qofka waxa laga yaabaa waxyaaba aan jirin inuu yar sawirto oo maskaxdii baa dhiig ka yariyay maskaxdeena waxa ku shaqeysaa waa dhiig oo dhiigna waa intaasoo nooc hadday qaybaa laga yaabo inaad weydaba haddaad wixii laga helaya cuni weydo dabeedna maxaa ku dhacaya maskaxdii shaqadeedii way gabaysaa inuu khiyaal qofkii isu sawiro ayaa iyadana dhici karta waayahay biyihii haddaynu weyno maxay nagu dhacaya waxay nagu dhacaya calool istaag baa kow ka ah qofku hadduu biyaha waayo waxaa ku dhacaya daal waxaa ku dhacaya kaadi mareenadoo dham inay xanuunaan waayo waxyaabaha khashinka jirka ka saara ee keliyaha iyo kaadi mareenka sifeeya biyaha weeyaan kaadi mareenadii baa qofkii xanuunaya qofkaasi wuxuu noqonayaa qofaan fiirsi badan yeelan karayn marka hadalka aan hadlayo kale laga yaabaa inuu dhageysan kari waayo qofkaasi oo aanu in badan saa u eegayn ama hadduu wax akhriyayo fahankiisa iyo maskaxdiisa inuu soo jeedo qofkii way ku yaraanaysaa qof yar ka yar dhacsan oo aan wax badan u fiirsan karayn buu noqonayaa dheefshiid xumo
cuntadii uu cuno habkii dheefshiidka ilaahay ugu talagalay inay cuntadii burburto wixii nafaqo iyo fitamiinyo waxaan ku jiro dhan uu jirkii kala baxo sidii la rabay uu isticmaalo khashinkii iska saaro dheefshiidkii sidaa u shaqaynayna uu khalkhalaya isaguna oo dheefshiid xumo ayaa qofkii ku dhacaysa hadday biyo ku yaraadaan maadadii aynu fibertan nidhi iyadana haddii la waayo maxaa dhacaya fiberta haddii la waayo waxaa dhacaya khashin saarka ay u qaabilsantay qofka khashin saarkiisa oo dhan wuu yaraanaya khashina dhowr nooc baynu khashinka u saarnaa dhididka oo kale saxarada oo kale qofkii calool istaag baa waxa ugu badan ee ku dhaca uu noqonayaa waxaa ku dhici karaa dhiikar baa ku dhici kara waxaa ku dhici karaa inuu qofkii noqdo qof iska buuran uun isagoo nafaqo badanna lahayn haddana hilib badan inuu noqdo waxaa ku dhici karaa inuu qof isagoo wax cunay haddana gaajo uun dareemayo oo aanay cuntadii sidii la rabay wax aanay ugu tarahayn waxaa ku dhacaya sonkortii wixii macaanka aynu naqaanay ama inay sonkorta jirkiisii ku badato waayo khashin saarka wixii sonkor dheeraada wixii maxaan ku leedahay khashin dheeraad ahay oo dhan baa kugu haraya dabeedna dhiikar baad khatar u tahay macaan baad khatar u tahay baruur aanad u baahnayn baad khatar u tahay calooshii watanku istaagtay dee khashin saarkii uu xumaaday waxaasoo dhan baa iyadana subagoo kale waxaa la yidhahdaa ama beer subaga imika waynu aragnay wadankeena si ugu badan yahay beer subaga iyo dhiikarkii macaanka intaasiba waa halis baad ugu jirtaa haddii cuntadaada fiberta maadadaa la yidhahdaa ay ku yaraato waayahay duxdii iyo saliidihii iyagana maxaa dhacaya haddaad weydo jir qalal baa kugu dhacaya oo qof mar walba jirkiisii sariya dubkiisii harqiya isagoo dhaashanaya haddana aan waxba u tarahayn safan baa kugu dhacaysa wax laga yaabaa inay ku dildilaacaan iyadoon xilli dhaxanaba ahayn inay ku dilaacaan cirbihii farahan caaradoodu inay ku dilaacaan baabacooyinka xuub kaa kaco qof jir qalal mar walba ku jira ayaad noqonaysaa waxa kugu dhacaya jirkaaga wax laga yaabaa inay wax ka soo baxbaxaan xeeryaro ama burooyin yaryaro ama cadcadaan midabkiioo kala duwan inaad yeelato ayaa iyaduna dhici karta qaybta u dambeysa oo aynu nidhi waa qaybta carbohydrate-ka ama tamarta keenta haddii la waayo qofkii tamartii baa ka dhacaysa awoodiisi way yaraanaysaa qof iska daciifaho iska hinraagayo mar walba hooseysa awoodiisi buu noqonayaa waxaa ku dhacaya madax xanuun badan buu yeelanayaa wiswis buu yeelanayaa ladaadiyuunbaa igu kacsan buu qofka laga yaabaa inuu yidhahdo ladaadiyooda mar walba madaxuna aada u xanuuno tamartiisuna ay dhacdo markaa kolley inahaasaa ugu badan marka laga waayo qaybihii la rabay ee muhiimkaa cuntada waxyaaba kalaa jiroo badan laakiin intani waa intana siri way ugu muhiimsantay aan sirida waqtigana waad kaga faa'iideyn kartaan inta badan innaga dhaqanadeena waxaa ka mid a inaynu cunto badan cunno qadadii la kariyo qof walba sixni bariisa cuno ama sixni baasta laxoox in subaxii la dubo qof walba 4 iyo 3 iyo ka cuno inta badan marka cuntada badan waxaa kaloo inoo caado ah inaynu fadhino inaan jimicsi samaynin inteena ugu fiican waa inta guriga ka shaqeynaysa taasina waxa laga yaabaa inaanay heerkii la rabay aanay kuugu waliba khaasatan dadku markay yar weynaadaan jimicsi ma samayno inantaas inantuun baa laga yaabaa inay guriga ka shaqeyso hooyo maalinta ay noqoto inanuun bay qabsanaysaa ama hadday ehel ha noqoto ama inan shaqaalaa markaa fadhi badan iyo cunto badan baa runtii inaga caadaynoo ah soomaalideennii hore iyo dadkeennii hore dhaqankoodana aan ahaan jirin oo dad shaqaysta oo in badan lugeeyo oo xoolo raaca oo waraabiyo oo dhaamiyo oo dee tacab badan gala cunto fiicanna cuna dabadna dad dhuudhuuban hilib fiican leh jir adag leh midab dhalaalaya labay ahaayeen waayo wax dux bay cunayeen wax nafaqo leh bay cunayeen wax maxaan ku raday cunto isu dheeli tiran bay cunayeen ka bacdina khashinkiina way saarayeen way lugeynayeen marka inaga imka mushkiladaha ugu badan ay nagu dhacay inaynu waxna cunno waxaan caafimaad qabin weliba cunno ka bacdina aynu meel fadhiisano marka waxyaaba ugu badan ee laga dhaxlo dadkeenu aad bay ula yaaban yihiin cudurrada nimka inagu soo kordhay laakiin halkay ka yimaadeen waxaa ka mid ah cunto badan oo nafaqo lahayn iyo fadhi saddexdaa cudur aynu saddexdaba ka cabano xubno xanuun inuu qofka xubnihi xanuunaan uu lugi ka kici waayo uu garaac yeesho yidhahdo curuuqdi baa laga garaacayaa macaan iyo dhiikar saddexdaasiba waxay ka yimaadeen qofku inuu cunto badan cuno oo nafaqo lahayn fadhiistana oonu jimicsi fiican samaynin waxaa kaloo ku dhaca xididada iyo wadnaha xanuunada ku dhacaana way ku dhacaan iyaguna markaa kolley dee waqti badanna ma hayno aniguna intaa wax ka badan oo lagtara kumaan talagelin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan
cuntadeena inay noqoto cunto isu dheeli tiran, inay noqoto cunto dabiiciya, inay noqoto cunto kooban, inaynu kacno aynu fadhiga ka kacno aynu jimicsano aynu lugayno 30 minute baa maalintii kugu filan. كل جميع لو بهينا ما هدينا تقولي أنت تكسر بحضاد إلا سوق اللي جايس لكن عاير سكسي اللي ضل مرحبا وين ودنا هاجو شقية دي شركة جو حبنا هاجي مذول بقى ودقائق وجارو مركارهم تين عروري يرر مثلا كرسنا إننا ومهمة رنتني ويلمو أنتو يري هي هدي فيتامين حمو يوم حنقول أنا فقط ضر كل عضو waxbarashadii soo hoos bay u dhacdaa korriinkiisa maskaxdu ilmo wuxuu noqdaa aan maskax fiicnayn aan xusuus fiicnayn aan xifti fiicnayn ayuu noqdaa marka carabtana in lagu dadaalo de kulliba waxaan isleeyahay guryaheena in kharash badan baa ku baxa qof waayay oo soo qaban waayay mooyaane waxa ugu badan inuu ku dadaalo wax weeyaan xagga maxay dhaqaalaha guriga marka inaynu ka faa'iideyno cuntada wadaniga ah aynu isticmaalo ayaan kulli ku koobayaa دوانا مهتنتين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولاشن سعاد أدبي ومحصنتهاي كلمة قيمها بدن كسابسن فائدين كعنتوين كا. إما كانوا حي نوكسي حق دونتا معمل كمركز كأم معاد سعاد عبد الرحمن سودو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته إلهي بأمهاد تبارك وتعالى mahad dhammaanteed allay u sugnaatay subxaanah waxaa aada iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhammaan ardayda kasoo qeyb gashay maanta xilligan xidhitaanka amaba qalinjabintii ardayda cunto karinta ee markaskeena mucaad waxaan aada iyo aad sidoo kale ugu mahad celinayaa waalidiinta nagala soo qeyb galay waxaa kaloo aad ugu mahad celinayaa iyadana macalimadeena qaaliga ah ee Sucaad Cabdilaahi oo nagala soo qayb gashay waxyaabo badan oo faa'iidaan halkan inooga soo jeedisay waxaa kaloo iyadana u mahad celinayaa dhammaan walaalaha si khaas ah waqtigooda ugu soo huray ee nagala soo qayb galay iyaguna macalimaadka waxaa kaloo ugu mahad celinayaa tasjiilaadka Al-Xuseeni oo inoo khaas inoogu yahay inta faraha badan duubista maaragtay xaflaadkeena markaska mucaad oo inta badan noo daadiyay walaalkan Cabdiraxmaan Xariir jazaahullahu khayran mahadnaqa ka bacdi waxay radaan ka tilmaamo markaskeena aan iskugu nimid maanta qalin jabinta ardayda cunto karinta baranaysay markasku waqti dheer isagoo jira hadda oo muddada uu markasku jira ay tahay muddo 10 sano waxa aad iyo aad maaragtay xusid mudan dafcadan maanta aynu fadhino waa dafcadii 25aad ee cunto karinta barata waxa maaragtay markasku uu ka shaqeeyaa ama ku hawlan yahay laba qaybood qaybta dacwadda iyo tababarada dacwadda waxa uu ka qayb qaataa qaybaha xifdiga quraanka sidaad ka warqabtaan ay qaybo badan bay inooga maaragtay socdaan iyo sidoo kale qaybta daraasaadka islaamiga ee shareecada lagu barto iyo qaybta xifdiga mutuunta ee ardayda xufaadda ee quraanka dhameystay ay dhigtaan sidoo kalena wuxuu markasku inooga hawlgalaa qaybaha tababarada ay ka mid yihiin tababarka macallimiinta iyo ducaadda tababarkan imika maanta aynu fadhino ardaydii qalinjabintoodii ee cunto karinta iyo tababarka hooyooyinka ee maaragtay la talinta iyo hogaaminta qoyska waxaa kaloo iyadana ka mid ah tababarka isqurxinta ee u gaarka hooyooyinka iyo dhalinyarta ciddii markaa had iyo jeer ala jeclaysata hooyo iyo maaragtay gabdho yararba ee lagu soo qaato xidhnaha iyo isqurxinta faceka iyo waxyaabaha dabiiciga ee wajiga lagu qurxiyo tababarada uu markasku khaaska leeyahay oo imika aynu maanta waxaan kusoo dhawaan doonaa qaybtan aynu maanta u fadhino muddadii yareeda koobnayd waqtiga aad waxaynu uga faa'iideynay inuu waqtiguna waqti kooban noqdo ardayguna wax tayo la qaato ilaahay fadligiisa waxaynu ku guuleysanay muddo 3 bilood inay ardaydana ku qaataan
soddon cashar oo isu dheeli tiran oo macaan iyo dhanaan iyo cuntooyin wadaniya isugu jira qofkuna uu casuumad ku diyaarin karo maantana aynu dareemayna ardaydii maalintii bilaabay in activity-goodiina soo hordhigeen aynu arkayno wixii ayna soo hordhigeen ilaahay baa fadliga iskale tabaaraka wa tacaala dadaalkaa waxaynu u gelinay inay ardaydaasi qaataan casharada waqti kooban baahida aynu u qabno daraaddeed markaynu nahay hooyooyin markaynu nahay dhalinyar hooyo kasta waxaa laga yaabaa inanteeda inaanay gurigeeda dhexdiisa ku tababar qaadan karin waayo wabay la kala maqan yihin ardayd bay noqotay inantii maalintii 6 jir gaadhay ilaa ay intay ka baxaysay jaamacad labada gelinba way noqonaysaa mar xifdiga quraanka u raaca deetana labada gelin xillina waa iskuulkii xillina waa xifdigii quraanka markay xifdigii dhamaysana shareecadii baa loo daba gelinayaa sida inta badan qaaliban aynu ku dhaqano bulshadeena maanta waxaa kaloo jirta markay gelinka iska soo dhamaysa shareecadan halkaas ay ka sii galaysaa jaamacadii tii maadiga doonaysay halkaas ay maadigii ka sii galaysaa fursad hooyo uma hayso ay wax kaga eegato iyo waxay kaga faa'iideysato taaba marka maxadkeenan iyo markaskeenan Mucaad wuxuu iska xil saaray dhalinyarta noocaasa siday ugu faa'iideysan lahayn hal maalin kamida jaaniskooda oo isu dheeli tiri lahaayeen aqoontooda guriga ay uga baahan yihiin iyo ka murabbiy ahaan mustaqbalka markay hooyooyinkii mustaqbalka noqdaan iyo sidoo kale waqtiga ay maaragtay waxbarashada haystaan si aanay uga dayacmin waqti fara badan aanay kijadii iyo gurigii ugu qaadan laakiin ay waqti darsi ay soo qaateen oo habaysan ay qaataan hooyooyinkina ay ka dalbadaan inay kariyaan oo ay gurigii ku kariyaan alxamdulillaah bifadlillaah hooyooyin fara badanna waxay ku faraxsan yihiin inay hablahoodu soo bartaan xirfadda kabacdina ay guriga ku tijaabiyaan wax fara badanna way kala kulmaan oo wanaagsan maaragtay iyadoo maaragtay way fara badan oo soo jawaab celiyeen oo markasku u arkay muddadaas waxay ardaydu qaadanayeen waxay aad iyo aad la yaab badan markuu ardaygu waxan bilaabayo ama cunto karintan uu bilaabayo sidii halkan walaalihii ka hadlay oo dhan sheegeen uma arkayaan dadku in darsi waqti lagu bixiyo uu yahay laakiin marka uu ardaygu soo xaadiro darsiga uu bilaabo ayuu arkayaa waxan maanta la soo hordhigay ama casharkan uu bilaabay inuu cashar ka maqnaa yahay waxay cuntooyinka noocyadiisa kala duwanaa ayuu arkayaa wuxuu kaloo arkayaa shayyo yaryar oo iska fududaa xataa oo haddii uu markii garan lahaa wax fara badan uga faa'iideyn lahaa gurigooda iyo usradooda marka alxamdulillaah imakana waxaan dareemaynaa inay iskuulada noocan oo kale ay magaaladeena aad ugu badan yihiin dumarkuna imika ay aad ugu baraarugsan yihiin inay mawaadiicdan ka faa'iideeyaan hooyada guriga ay maaragtay ku soo bixin karto qoyskeeda iyo markaa nidaamka gurigeedana ay kaga qayb qaadan karto waxaan qabaa hooyada barata 30 cashar oo kaliya tafanunka kala dududa waafajisana sidii markaa fawaa'ida ay leedahay qidaa'iga ah iyo miisaaniyada qidaa'iga samaysa waxay sameynaysaa inay usradeeda noqoto usra ku soo baxda xagga cuntada wax fara badan oo wax soo saar lehna dadkii uu u noqonay jirahaan iyo caafimaad ahaanba alxamdulillaah waxaan ku soo koobayaa kolley waqtigu maaragtay imaka aynu ku jirno baahida ay dhalinyartu u qabaan way aad bay uga fara badan tahay hooyinku u qabaan hooyinku wax kastaba ha bartaan amaba maaragtay ha ku soo kordhiyaan xirfadooda muddo dheer bay wax soo wadeen hooyada ugu yaree laga yaabo inay 10 caruur korinayso ama 8 caruur korinayso waxa laga yaabaa intaas oo sanadood inay sanadba laba dhari soo kordhinaysay muddo wax ku filan ay iska haysato laakiin ardayda imka ku mashquulsan cilmigan hadda aad ugu faraha badan waqtigeena aan ku jirno oo maaragtay waqtiga badan dheeraadkaana ka qaadanaya talabaad ay u soo korodhay tiknoolajiyadii oo iyaduna waqti dheeraada ka qaadatay inay dugsigan iskuulada u galaan oo macaahida Mucaad oo kala ay umaadani ka faa'iideystaan waqti waxay ka helayaan faa'iidooyin fara badan ay ka helayaan markaskuna wuxuu inoogu ballan qaaday sida xaqiiqada ah in maaragtay meel kasta oo maaragtay ardaygu uga baahdo inuu ku heli karo casharkan waayo markasku wuxuu leeyahay faraacyo fara badan faraacyada mid kasta waa lagu dhigaa darsigeenan cunto karinta waxaanay ka faa'iideysta arday xaafad kasta ku yaala ardayda markaa casharkan cunto karinta waxaa muhiimad leh marka ardaydu sidan oo kale casharada u bartaan oo kula dardaarmay khusuusan ardayda maanta qalin jabisay ardaygu wuxuu u yaqaanaa wuxuu sameeyay wixii loo sheegay iyo ka buuga ugu yaalaaba aad bay ugu adkaan karaan laakiin ku saa u soo sameeyay maanta miiska soo dhigay maalin dambe uma baahna marka 30kii aynu tijaabinay buugeena muqarrarka koobaad inoo ahaa
sida uu iskuulku ugu talagalay ama maxadkan uu macaad ugu talagalay ilaa 5 muqarrarkeenu uu yahay 5 buug oo kala dambeeya qaar macaanka u khaas yihiin qaar dhanaanka u khaas yihiin qaar casuumada u khaas u yihiin qaar sidoo kalena aynu ugu talagalnay inay cuntooyinka wadaniga ah lagu koobo buuggan koobaad oo isagu isku darki ah oo qofka la doonay hadduu xitaa muddo kooban doonay inuu ku takharujo uu wixii baa qaar qayb kamid ah uu qaadanayo ayaan maaragtay ku boorin lahaa inuu qofku sameeyo uu isku dayo alxamdulillah maanta aad baan ugu mahad celinayaa xaqiiqatan ardayda fanka maanta bilaabay muddada yare kooban iyagoo niyad u haya waqtigooda hurayay ومع ذلك waxa weeyaan maanta ayna soo tusay oo inoo soo bandhigay aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan waan u mahad celinayaa macallimiinta iyaguna maanta inagala qayb qaatay wax maaragtay wax ku oola oo aynu wax ku qabsan karno oo cuntooyinka ku saabsan sida macaan sucaad oo kale inaga tiri dhammaan waalidiinta inagala soo qayb gashayna way muhiim aad bay u mahadsan yihiin intaasaan hadalkeena maanta ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan ku dhownahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaan u yeedhayaa asma yuusuf oo ay odhan doontaa kelmadda martida bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baxda salaan waxaan aada ugu faraxsanahay in kala soo qayb galo madasha tambilan boqoran ee barakaysan waxaan aada ugu faraxsanahay inay noo soo baxeen hablo ku takhasusay inay cunto inoo kariyaan hablaha imika joogaa walow waysay macalin sucaad inoo sheegtay ay hooyooyinku ku fiican yihiin in badan ay wax soo karinayeen hablaha imika jooga inta gurigiina wax ka qabata aad bay u yar tahay saynu wada ognahay inantu iskuul bay dhigata markii 6 jir gaadha iskuul la geeyaa haddii la madrasad loogu daro iyo quraanna waa la xifdisiiyaa haddii kale maadigaasay wadaa maalintii jaamacada maysan shaqo ma raadisaa wax kale ma raadiso sida ay shaqada u diidaysaa baday heshan ku guuleysatay haddii aanay ku guuleysan aanay kuma guuleysan ay miinanta guur iyo mustaqbal soo baxa marka uu soo baxaado guur waxba ka garanhayn ayaa waxa laga yaabaa uu guur ku yimaado iyo waqti iyo waxaan garanhayn marka markiiska macaad waxaan aad ugu faraxsanahay inay tababar siinayaan dhalinyarta hablaha ah ay ku tababarayaan inay baraan cilmiga guriga ku soo bilaab cuntada tarbiyada caruurta waxyaabaha fara badan baa jira oo ka qaldan bulshadeena in la saxaanay qurux badan tahay haddaan soo noqdo cuntadu waxay muhiim u tahay caafimaadkeena sida ay noo sheegtay macalin sucaad cabdilaahi oo aad ugu mahad celinayno ah macalimad iyo hooyo u dabar adeegtay inay bulsho soo saarto iyo dad maxay hayday takhasus iyo khibrad leh cuntadu waxay muhiim u tahay caafimaadkeena cuntadu waxay ka qayb qaadataa quruxdaada guri marka tay joogto eed hooyo tahay haddaad cunto fiican soo bandhigto oo cunto kariso waxa laga yaabaa dumarka Soomaalidu waxa ka cawdaan waana la gursaday la gursiga waxa ka cunto xumo waxa kaaga noqonaysa haddaad cuntada karinaysay ilmaha yar cuntada siinaysay iyo ninkaaga cuntada siinaysa dad kala garan weydo waxyaabo badan bay ka dhiman bay aniga la tahay oo bulshada ka wada qaldan waxa jirto kale inaynu guurno cunto cusub oo inoo soo degtay oo aynaan la qabsan sidaynu uga soo guurnay ayman magaalada bariis iyo baasto nagu nimi every day waa maalin walba guriga waxa lagu kariyaa bariis iyo baasto siday macluumaadka cuntada u kala qaybisay waxa ku arooraan oo ay galaan carbohydrate waana tamarta Soomaaliga laga wada dhisay dadna waa la yaacawna waa la baxawna waa la cunaa waxyaabo badan hadii soo korno cuntadeena dhaqanka oo hadaynu noocyo badan u dhigno sida caalamku imika hindidoo kale waxay dhaqan u leeyihiin bariis bay leeyihiin bariiska iyagaa beerta iyagaa la soo baxa iyagaa nooca doonaana u dhiga inagu bariiska manihiin inagu mana dhigdhigano oo kolba nooc ma dhigna intaynu soo degnay isagoo warshadkeenu meesaa u karsanaa bariiska waxaan barano waa la isku dhex kariyaayo intaas la isku shuunba la cunaa markaa waxaan aad ugu faraxsanahay inay imka cuntooyinka halkaa yaalo kale aanay guryahan in badan oo laguna karin balse ay noo soo bixeen bulsho iyo dad maxay hayday waxay noo karin karaa cunto karintu ayaa imka magaalada Hargeysa ugu badan tahay markiiskan macaad waxaan u qayb ka ahaa muddo laga joogo imika 2012 ayaan ardayd ka ahaa waxay ugu dambeysay 2017 oo hawlo yar kale oo dhibaatana aad uga xumahay dhinaca maadiga aanu leexday ayaan 2017 wixii ka horeeyay waa ku guda jiray dacwadana aad buu fiicnaayo dadka daaciyaala oo dadka diinta gaarsiiya oo aad dacwada ugu fiican buu ahaa cunto karinta aad baan ugu faraxsanahay tarbiyada caruurta maamulka qoyska waayo qoyska maamulkiisu wuxuu ku xiran yahay hooyada siday hooyadu maamusho ayuu qoyskaas noqdaa ilmaha hooyo maamulka wax ka garanaysa ay dhashay marka goobaha waxbarashada la keeno ee ilmihii keejiga la soo fadhiisiyo ama madrasada
bilowg waa la keeno waa la garanaya hooyadii ilmahan aqoon leedahay iyo aanay aqoon lahayn waxaynu jecelnahay dhammaan hooyooyinka inay jecel yihiin inay usoo baxaan dad bulshada wax tara oo inamiya hablaba bulshadii qayb ka qaata waxaynu la soo kulannay casri ay waxbarashadu fududahay laga soo bilaabo imka hooyooyinka imka wax baranaya inaanay waxbarasho hore u gelin ay imka waqtiga iska goynayaan oo waayo chance kama helnay inagoo yaryar waxbarasho aynu helnay waxbarasho laynagu gara taagan yahay oo dad tirado hooyada waxbaan maanta akhrisanaya amba halkaasaan tegaya aanay ku odhanahayn horta waxaan qabo oo gurigan wax ka qaba aanay kugu odhanahayn ay ku siisay fasaxida wax walba soo qabsato wax walba aad barto sida wiilka kula dhashay guriga aad ku haato marka chance fara badan weeyaan oo aynu helnay diinta islaamka inaynu barano oo dadda ciyaala oo dadka diinta gaarsiiya aynu ahaano ummad waxbarata oo waxbarashada ku fiican kuna fiican wixii laynoo diray ma aha imka dibadda haddaad kasoo qabata waxba dheeraad iyo waxaa soo kordhisay balse gurigu waa asaaskii koowaad iyo wixii lagu abuuray ee meesha aad u joogto inta badan dadka ilaahay caabudaadiisa kasakow gurigaha gabadh loogu ogaa hadday meel kasta ka shaqaysa hadday macaa wasiir tahay guriga cuntada way ka karsaa gabadhu marka wixii asaaska ku hayloobin waxaan idin leeyahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa macalin Sucaad Cabdilaahi oo ah macalimad dadkaas soo saartay waxaan iyadana ugu mahadcelinayaa maamulahaygii macalimadeydii macalin Sucaad Cabdiraxmaan oo leeyahay jasaakumullahu khayran waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda halkan inoola joogta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo martida kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa intaas fiican inoogu xiriirinaysa barnaamijka waxaan idin leeyahay baraara oo barakooba oo barkad yeesha aad u mahadsantahay walaasheena Asma Yuusuf waxaan joognaa gabagabadii barnaamijkeena waxaan ku soo dhaweyn doonaa walaal Sucaad Cabdiraxmaan oo u qaybin doonta shahaadooyinka ardayda ka baxay maxadkeena ama markaskeena Macad ardayda soo tiradooda tahay 20 hablood muddo 3 biloodna soo qaadanaya cunto karinta soo dhaweeyay leena Sucaad bismillaah ilaahay baa mahad tabaaraka wa tacaala ardaydan hadda imaka waqtigaynu gabagabadii baynu gaarnay waxa weeyaan xilli waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenan ilaahay baa fadliga iskale tabaaraka wa tacaala ardayda aad baan ugu mahad celinaya xaqiiqatan waqtiga yara kooban ay soo dhabaraadeygeen uguna tala galeen inay maaragtay kaga takharujaan cuntooyinka loogu tala galay muddada kooban kulli ardaydii maanta halkan imtixaanka u soo galay ee tartanka u soo galay kaalmana way kala yeelanayaan maanta ma sha Allah oo kaalmahaas aynu u kala qaybinayna 3 darajo tii koobaad tii labaad tii saddexaad waxa kale aynu sameeynaa in dhammaan ardaydii maartay 10kan dhameysatay inaynu siino shahaadooyin kuwaas aynu ugu tala galay inay cadaan yaro kooban u noqoto darsigoodan kitaab buuggoodan marka cunto karinta aynu qaadanay oo la yiraahdo kobci karintaada heerka koobaad labaad iyo saddexaadna insha Allah iyo afraadna inay ku dari doonaan ma rajaynayaa marka maanta waxaan horta koow ka dhigayaa ardayda kaalinta koobaad iyadoon u raacinaya insha Allah hadiyad amaba jaayisad ugu tala galay markaskeenan Macad oo iyaduna ah mid maanta ka duwan jawaayistii horeynu bixin jirnay haday masaaxiif ahayd haday maaragtay Allahumma salli ala Muhammad kutubta aynu aqoonta ka dhiganayna ahayd maanta 10kaynu dhigano ayaynu ku qaadanaynaa jaayisada insha Allah tacaala qalabkii cunto karinta ayaynu insha Allah tacaala ugu tala galnay in ardaydu jaayisad ku qaataan marka jasaakumullahu khayran waxaan maanta kaalinta koobaad ka dhigayaa maamo kamida maamooyinka oo waqtigeeda aad ka u qaaliga ku qaadatay inay maaragtay ay fursad ay bixiso waliba soo tijaabiso wax kasta oo casharadii halka lagu dhigtay theory markii loo galayna kaalinta koobaad qaadatay waa Xaliimo Cumar Faarax jasaakallahu khayr ma sha Allah jasaakallahu ma sha Allah مريم سلم ما شاء الله تعالى دي معقبه خير ربك ما شاء الله وهي حليمه waxay ku baasay darajada 100% insha Allah jasaakallahu khayran baynu leenahay Allah kugu xifdiyo allana ku barakeeyo ilmigaaga kaalinta labaad waxa weeyaan hooyooyinkiyo way tartamayeen iyo maaragtay dhalinyartuba lama kala dhacaynin ma sha Allah waxa jirta iyaduna sidoo kale qaybtii dhalinyarta iyada kala idima ilaabin kaalinta labaad waa Asma Jaamac Maxamuud
أسماء جامع محمود. kaalinta saddexaad waxa weeyaan ardayada Safiya Carab Maxamed. intaa ka bacdi shahaadooyinka dhammaan ardayda halkan fadhida xaqiiqatan waataynu maaragtay sii horeysiisanay barnaamijkeena inaynu waqtigaa kolley ka faa'iidaysanana waa muhiim salaadii baa laynoo aadaamay biidni illaahi tacaala dhammaantood waxaa muhiim ah oo aad iyo aad aan uga dardaarmayaa ardayda halkan ku qalin jebisay maanta inay fursaddaa yar ee kooban. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kan ka guddoonsiinaa macallimadeed macallin Sucaad الله بركيه نور برتاي حفظ maxaan ku raayay barashada cunada waxay guddoonsiinaysaa ardayad Safiya Carab. waqtiga yar kooban insha Allah taala waxaynu si degdeg u yeedhin doonaa ardayda qaybta kale saddexda kaalmood wixii ka dambeeyay ayaynu yeedhin doonaa insha Allah taala ardayda waxaanu yeedhayaa Hoodo Xuseen Diiriye. Hoodo Xuseen Diiriye. هاي نصري محمود كيدي. هاي ليلى محمد عثمان. هذا عبد إسماعيل. شكرا. صافية صلب جامع. اوكي. ليلى حسن محمد. ليلى حسن محمد. فايسة أبي بشير. وقتي وقعد بو يري هاي صار رقصة. فايسة أبي بشير. هذا علي حسن. أصلي. نمعة عبد الرحمن طاهر. هذا محمد عثمان. halkaas ay noogu dhamaatay insha Allah taala waa dafcad dambe iyo insha Allah taala wixii aynu Ilaahay subhanahu wa taala ina karsiyo inaynu halkaa ka sii wadi doono xirfado kale oo cusub taasoo inu aad iyo aad muhiim u tahay inaynu halkaa ka sii wadno qaybaha aynu ugu talagalnay inaynu halkaa ka sii wadno in kuwan ku sii xigsiin doontaan insha Allah waxa kamid ah maaragtay nashqadayntii iyo keegagii qurxintoodii oo gaar ah iyo qaybaha kale macaanka ee raaca insha Allah taala taasina waa xirfada oo halkaa laga sii wadi doono iyo buugga labaad khayr baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ومن عناء والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء إن الغذاء نعمة من خالق معطاء إن الغذاء نعمة من خالق معطاء إن الغذاء نعمة من خالق معطاء